waxaan idiin wadaa qiso yar oo cajiib ah oo xigmado badan taabanayso noloshu. Mar walba waxa ay tahay mid u baahan in cashir laga barto. Maalmaha quruxda badan ee ku soo maro iyo sanadaha quruxda badan waxa ay mar walba kuu sheegi doonaan waxa aad noqonaysid iyo qofka aad tahay. Qisada maanta ay idiin wado waa qiso xigmadeysan. Nin ayaa hadda ka hor waxa uu soo guursaday gabar. Kadib maxaa dhici doono? Gabadhi markii uu soo guursaday aroos waxa uu dhigay aad u qurux badan, waana ay la dhacday arooska loo dhigay. Kadib waxay wada degeen guri aad u qurux badan. Ninku ficil ahaan wuu afgaaban yahay, hadalkiisuna ma badno. Sidaas oo ay tahay waxa uu ahaa nin aad u wanaagsan oo ku wacan dhaqashada reerkiisa. aad ayuuna u jeclahay xaaskiisa, iyadana sidoo kale aad ayay u jecleed xaajigeeda. Sidaas oo ay tahay noloshu, xaajigu wuxuu ahaa mid mar walba mas'uuliyadda guriga damaanad qaadi jiray. Haddii ay noqon lahayd cuntooyinka iyo howlaha kale ee guriga looga baahan yahay, aad ayuuna ugu taxadiri jiray xaaskiisa. Waa aamusane oo afkiisu wuu gaaban yahay. Sheekooyinka qaar kuma fiicno oo waa iska aamusan yahay. Noloshu waxa ay la tahay waa la isguursado oo keliya. Gabadhu uma sheekeeyo, uma dhoola cadeeyo, hadallo qurux badan ma uusan dhihin. Laakiin waxa uu mar walba diiradda saaraa reerkaas inuusan dumin. Biilku wuxuu u bixiyaa si wanaagsan. Gabadhu waa ay yaaban tahay, wax ay dhahda ayayna aqooweysay. Ahaan way bedeli weysay ninka qaabka uu yahay. Wuu imaadaa, wuu casheeyaa, wuu qadeeyaa, wuu quraacdaa, shaqadiisa ayuu aadaa. Habeenkii oo keliya ayayna isla jeeftaan. Waxaana arooskoodii ka soo wareegatay muddo 10 sano ah, ayaga oo weligood sheeko xusuus xataa aanan ka wada sheekeysan. Xaaladdu waa iska samirtay gabadhu, wayna u dulqaadatay. Adiga ahaan daawanaya qisadan, haddii xaajigaada muddo 10 sano ah uusan kuu dhoola cadeen, uusan kuu qoslin, uusan kuu sheekeen, maxaad dareemi lahayd? Ifur miyaad dhihi lahayd? Wax kale maa la imaan lahayd? Mase reerkoo idil ayaa dumi lahayd? Su'aashaas kommentigiina ayaan ka sugi doonaa, ra'yiga ka soo bixi doono. Gabadhu maalinkii dambe xaajigeedii oo u socdo shaqada ayay kuleytiga qabatay. Markaas ayay dhahday, xaajigeygii maanta waxaan kaa rabaa meesha shaqada markaad tagtid samiicadan maanta shaqada markaad tagtid canjaladan qaado, raadiyaa xagga kuu yaala geli, kadibna daar oo dhageyso codka macaan ee aan kuu duubay. Ninkii waa uu baxay, shaqadiisii ayuu aaday. Shaqadii markuu aado wuxuu islahaa xaajiyadaadi maanta maxay kuu soo duubtay. Waa uu dhageystaa canjaladu, waxba cod ah kama soo baxo. Mar kale ayuu daaray, sidoo kale markii saddexaad ayuu soo wacay. Xaajiyadii markaas ayay ku dhahday sug waxyar, waxaa laga yaabaa inaysan weli soo qabsan. waa uu ku celceliyay, waa uu daalay. Mar labaad ayuu sidoo kale ugu celceliyay canjaladii. Canjalada ay u dhiibtay gabadhu xaajigeedana wax cod ah oo ku duuban ma jirto. Markii dambe ayuu xaajigii dhahay, miyaad igu ciyaareysaa? Ilmo miyaan kula noqday? Qof lagu ciyaaro waan ku weynahay. Markaas ayay dhahday, maya xaajigeygii oo aniga inaan kugu ciyaaro diyaar uma ihi, mana kugu ciyaari karo. Ninkii canjaladii oo idil sidoo ugu celcelinayay oo wax cod oo ka waayay. Kadib wuxuu imaaday gurigii. waa uu ku qayliyay, qayladiisina waxba umaysan arkin. Raadiyaha ayay soo qabatay, waa ay daartay, way daarmi weysay. wax yar sugayay dhahday. maantoo idil ayaan wax yar sugayay ayuu dhahay ninkii. mar kale ayay gelisay, wax yar sugayay dhahday. sidii wax yar sug loo dhahayay oo ninkii ay fiirinaysay caradiisii iyo xanaaqiisii, ayay dhahday, hadal yuusan ku dilin, gacalkana ha iska boobin. xigmadda meeshan ku jirto ila dhuux oo dhagahaadiisii oo ay amaahi. Markaas ayay gabadhii waxay ku dhahday, anigu waxaa tahay xaajigeyga. muddo 10 sano ayaana reerkan uu noo dhisnaay. 10kii sano oo reerkan dhisnaay
kaama aanin helin wax sheeko ah. waad i jeceshahay waan ogahay, ima suuray jirin, ima sheekay jirin, ima dhoola caday jirin. adigu 30 sekin iyo hal maalin oo canjiladan wax cod ah ka weysay ayaa sidaanoo idil u xanaaqday. anigu 10 sano oo aday ila hadlin oo aan xaaskaada ahaay. siday u aragtaa ninkii aad ayuu u murugooday, ilin ayaa ka soo baxday, isbedel ayuu la imaaday. reerkiisina sidii laga rajeynaya ayuu ka dhigay. xaaskiisina waxay tahay mid u dhoola cadeyso. xigmadan waxaa keentay xaaskiisii oo dhahday, haddii canjaladii waxay noo noqoto tusaale, haddaan canjalad la heli lahayn, tusaalahaygu maanta wuxuu noqon lahay sanado badan xaajigaygii inuu ga aamusnaado. adiga daawanayo muuqaalka ilaa dhamaadka sheekadan haddaan nala daawanaysay, sidee qofkaasii jeedo haddana ku qabo, haddana guri kuu joogo, sidee sheeko uu keensan lahayd. waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. tan iyo intaa ku kulmi doono qiso yar oo cajiib oo noocan oo kale ah, waxaan leeyahay bye bye. waxaadna ka daawanaysiin barta YouTube-ka Socdaal 24. sidoo kale aaladdeena TikTok ayaa ka daawan kartaa, iyo page-keena Mahad Sheekh Abuukar Mahad Socdaal. tan iyo muuqaal kale intaa ku kulmi doono saaxiibka sharafta badan oo waxaa ku leeyahay ku soo dhawaaw oo buuxi shuruudaha saaxiibtinimada aan nagal noqoysid.